waxaan halkan maanta u soo fariistay inaan duubo fariin wacyigelina maadaama oo aynu ku sii dhawaanayno ciidii oo munaasabada awgeed ay dad badan u baxaan safaro gudaha dalka gaar ahaanna berbera iyo dhinaca badda muwaadin hooyo aabe waalid fariinteedu waxa weeyaan maadaama ilmahaaga mas'uuliyadiisa aad ka mas'uul tahay soo korisay ilaalisay qofka koowaad ka mas'uulka adiga yahay fariinteedana ku sidna waxa weeye yoomka ciida ama maalinta ku xigta ama maalinta labaad waxa jirta dhalinyaradu way sursadaan gaariba ka haystaan safaray u baxaan gawaadhida ay ka haysanayaan inta u dhaxaysa magaalooyinkeena markay ku sii jeedaan badda oo kale tusaalahaan ay ka baxaan Hargeysa ama Burco ka soo baxaan baabuurka waxa la saaraa waxay ku soo raacaan number badan dad badan bay ku soo raacaan waxa dhacda in khasaare marar badan soo gaaray oo in caruur badan iyo ubad badan ay jeclayeen ku weynay dariiqyada labada waxa kale oo iyaguna jirta markay tagaan berberana maadaama aan qofkan dadkan dhalinyarada aan weligood qaarkood bad arag in halkaana badana u shilal badan inaga soo noqnoqdeen xilliyadaasna ay u badan tahay hooyo iyo aabe ilmahaaga ka mas'uula ogow ilmahaagu waa asadkii hantida aad lahayd sidaas oo ay tahay ilaali ilmahaaga ogow maalintu tagayo cid raacayo cid ka xaynaysa halku tagayo adigu la safar adigu ilaali adigu badda u raac adigu gaariga u karee waxaan jeclaan lahayn inaad ku lamaanaato ilmahaaga si khataraha iyo dhibaatada inaga qaato waalid kastana waxaan ugu baaqaynaa inuu ilmihiisa isagu ka mas'uul yahay fariintan waxa idinka timid waaxda wacyigelinta ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland.